halyeygii hore ee xulka kubadda kolayga dalkaasi Mareykanka caan ka ahaa NBA-da dalkaasi Kobe Bryant ayaa ku geeriyooday shil diyaaradeed oo ka dhacay magaalada Calabasas ee gobolka California dalkaasi Mareykanka isaga iyo gabadhiisa yar ee 13 sano jirada ahayd ee Gianna iyo ilaa 7 ruux oo kale. Kobe Bryant oo 40 sano jir ah ayaa isagu ku safrayay diyaarad qaas ah ee nooca helicopterka uu isagu leeyahay taa oo ku burburtay buuro ku yaala magaalada Calabasas ee California. xidiga 5 jeer isagu qaaday horyaalka NBA-da dalka Mareykanka ayaa kamid ah ciyaaryahanada taariikhda sida weyn looga qadariyo ciyaarta kubadda kolayga ee NBA-da dalkaasi Mareykanka. ciyaaryahano noocyo kala duwan ee sportiga iyagu ciyaara iyo taageerayaal aad u fara badan ayaa ilaa iminka guud ahaanba caalamka si weyn u hadalhaya geerida iyo shilka diyaaradeed ee uu ku baxay halyeygii hore ee kooxda Los Angeles Lakers. gawaarida gurmadka degdega iyo ciidamo police oo iyagu daqiiqado kadib gaaray markii diyaaradda ku dhacday buuraleyda la yiraahdo Las Vegas ayaa iyagu sheegay markii hore in Kobe Bryant iyo gabadhiisa iyo 3 ruux oo kale ay meedkooda heleen, iyadoo markii dambe police uu sheegay in dhammaanba 9 ruux ee diyaaraddaasi helicopterka ahayd oo nooceedu ahaa Sikor Sky S xariijin 67 markii dambena sawiro laga soo qaaday burburkeedii lagu baahiyay baraha bulshada iyo sidoo kale telefishinka dalkaasi Mareykanka. ciyaaryahan Kobe Bryant ayaa si weyn loogu tixgelinayay ciyaarta kubadda kolayga taasoo muddada 20 sano ee ku guda jiray uu guul weyn la qaybsaday kooxdiisii Los Angeles Lakers iyo sidoo kale xulka qaranka dalkaasi Mareykanka oo guulo waaweyn oo bilada markaasi dahaba uu kula guuleystay. Kobe Bryant oo 1996 kubadda kolayga ku soo biiray ayaa ugu horeyn garoon u galay oo u ciyaaray kooxda Charlotte Hornets, laakiin isla markiiba wuxuu u wareegay ama uu ka mid noqday ciyaartoyda iyagu ka qayb gala heerka NBA-da dalka Mareykanka isagoona u wareegay kooxda uu ku soo caanbaxay ee Los Angeles Lakers. waxa uu ku guuleystay abaalmarinta ugu sareysa ciyaartoyda NBA-da dalka Mareykanka ka ciyaarta sanadii 2008 isagoona sidoo kale xulka kubadda kolayga wiilasha Mareykanka kula guuleystay 2 biladood oo dahab ah markii guulo ay ka soo hoyeen ciyaarihii basketballka 2008 iyo sidoo kale 2012 la qabtay ee qaybta Olombikada. Kobe Bryant ayaana 20 sano kadib isagu soo qatimay ciyaarta kubadda kolayga isagoo fanaanada Los Angeles Lakers dhigay bishii Abriil sanadii 2016 ciyaar markii ay ka soo qayb galeen qoyskiisii ee taageerayaal aad u fara badan halkaasoo 60 dhibcood uu dhaliyay kooxdiisii Los Angeles Lakers. Kobe Bryant oo caan ku ahaa difaacista iyo dhalinta dhanka goolasha ayaa 2 jeer isagu ku guuleystay gool dhalinta horyaalka NBA-da dalkaasi Mareykanka oo ah kan ugu adag ee kubadda kolay laga ciyaaro caalamka. waxa uu magaciisii dhanka xirfadda kubadda kolayga cirka uu sii galay kadib markii Kobe 80 dhibcood isagu ka dhaliyay kooxda Toronto Raptors sanadii 2006 waxaana markaa uu noqday ciyaaryahanka labaad ee ugu sareeya ee hal ciyaarood isagu dhaliya goolal aad u fara badan kadib hal ciyaaryahan oo sanado aad u fog isagu 100 dhibcood dhaliyay. Kobe Bryant waxa uu ku guuleystay jaayisada Oscar-ka ee dhanka filimada kadib markii filim aad u koobnaa oo uu sameeyay sanadaasi 2018 aad loola dhacay kaasoo magaciisu ahaa Dia Basketball isla markaana sheekadiisu ahayd jacayl dhanka isboortiga oo uu qoray sanadii 2015. qaybaha kala gedisan ee bahda isboortiga iyo taageerayaasha iyagoo caalamka daafiisa ku kala dhaqan ayaa aad u hadalhaya isla markaana sheegay inay aad uga naxeen geeridaasi lama filaanka ahayd ee shil diyaaradeedka Kobe Bryant. waxaana dadka iyagu magac ku leh isboortiga ee arintaasi sida weyn uga hadlay isla markaana adeegsaday barahoodii dhanka bulshada kamida ciyaaryahan Shaquille O'Neal oo ay ka wada tirsanayeen Bryant kooxdaasi Lakers intii u dhaxaysay 1996 ilaa 2004. Darian Williams oo qayb ka ahaa ciyaartoydii bilada dahabka Olombikada kula guuleystay Kobe Bryant. xidigii hore ee basketballka ama ciyaarta kubadda kolayga Tony Parker ninka 8 jeer isagu ku guuleystay bilada dahabka ee ciyaaraha Olombikada Usain Bolt wariyaanka kooxda Manchester City ee Raheem Sterling halyeygii hore dhanka kubadda cagta xulka qaranka dalka England Gary Lineker ayaa isla ka hadlay. Bryant ayaa hadda ifka kaga tagay xaaskiisii Vanessa Bryant iyo 3 gabdhood ee uu dhalay marka laga soo tago gabadha Gianna ee geeriyootay. waxa gabdhaha kale ay kala yihiin Natalia, Bianca iyo Cabri oo iyadu dhalatay bishii June sanadii hore 2019.